رئيسل وزراء عصوب جمهورية فدرالك Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ku wareegay xilka ra'iisul wasaarenimada isagoo iska indhatiray baaq uga yimid ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ahaa in uu isaga xilka ku wareejiyo munaasabada xil wareejin ah oo ka dhacday laguna qabtay aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya ayuu Rooble xilka kaga wareegay si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Gulad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 17 bishan waxa uu magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble kadib markii 25 bishii August ay golaha shacabka ay kalsoonida kaga laabteen xukuumadii hore ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo sharci darro ku tilmaamay talaabadaasi ayaa sheegay in uu iskiis u go'aansaday in uu isu casilo una tanaasulo shacabka Soomaaliyeed munaasabada waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Sheekh Muudey iyo xubno ka tirsan wasiirada sida ku meel gaarka xilalka dawladda u sii wada ama xukuumadda qoraal uu soo saaray shalay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay in uu xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha cusub si waafaqsan dastuurka shuruucda dalka iyo dhaqanka dawladnimada waxaan kugu wargelinayaa in aan diyaar u ahay inaan kugu wareejiyo xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha kulana wadaago nuqulada xil wareejinta iyo warbixin guud oo ku saabsan halka ay marayaan dhaqangelinta howlaha waaweyn ayuu ku yiri Xasan Cali Khayre warqada uu soo dhigay bartiisa Twitterka dalabkana uu ugu jeedinayay Rooble sidoo kale waxa uu warqada ku sheegay in uu diyaar u yahay in uu xil wareejin uu ku sameeyo muddo isbuuc gudihiisa si looga fogaado dib u dhac ku yimaada dadaalada loogu jiro horumarinta dalka qaar ka mid ah garyaqaanada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay sharci darro tahay in Mahdi Maxamed Guuleed uu ku wareejiyo xilka ra'iisul wasaarenimada ra'iisul wasaaraha aynan ahayd in xilkaasi uu wareejiyo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxa codka kalsoonida baarlamaanka siiyay ay baarlamaanku ku ogaayeen in uu sharciyan u hogaamiyo dawladda federaalka isagoo laga rabo in uu xil wareejinta sameeyo maadaama isaga marka horeba loo dhaariyay codka kalsoonidana lagu siiyay hadda marka codka kalsoonida lagala laabtayna isaga la rabaa in sharciga sida uu tilmaamayo uu ku wareejiyo xilka waxa sidaas yiri Abukaata Zakariya Yusuf oo uu waramayay BBC ra'iisul wasaaraha cusub waxa war ah kama uusan soo saarin muranka ku aadan xil wareejinta iyo waliba dalabaadka kala duwan ee ka soo baxaya dadka sharci yaqaanada iyadoo dhammaan arrimahaasi oo dhan ay dhigaha ka fureysteen madaxda dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa xilkaasi shalayto ku wareejiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed inkasta oo arrintaasi ay dhacday horeyna ay qaar ka mid ah sharci yaqaanadu u qabeen wixii baarlamaanka ka dhacay sida ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre laftiisuba sheegayna inaysan sharci ahayn ayaa haddana talaabadan kaleeto oo shalayto ee ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay mid kaleeto oo kamid ah waxyaabaha sharciga ka hor imanaya sida ay dadka siyaasadda Soomaaliya indha-indheeya ay sheegayeen Cabdi Axmed si kooban markii ra'iisul wasaare uu xilka ka tago si kastaba ha uga tagay isaga ayaa xilka wareejiya arinta codsigu haddana ku sii daray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inuu diyaar u yahay inuu xilka isagu wareejiyo oo codsaday diyaar u yahay wareejiyo muddo hal toddobaad nidaamkii iyo nuquladii wixii uu hayeen oo ku wareejiyo dawladdu waxa soo dhan dhag jalaq looma siin ra'iisul wasaaraha cusub waxaana wareejiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka horey inta ayna dhicin arinta xil wareejintuna waxa ka dayriyay sharci yaqaanada oo sheegay inay dastuurka meel ka dhac ku noqonayso markaan intaas la fiirino dastuurka dunida ama xeerarka dunida ee dawladuhu ay ku dhaqmaan marka aan si u fiirino ka Soomaaliya inkastoo kuwa uu daciifsan iyo ku meel gaar u yahay haddana ma laga yaabaa wax si la doono laga yeelo laakiin dadka shacabka ah iyo dadka markaan siyaasadda ama systemka ku jirin loogu sheekeeyo inay dastuurka ilaaliyaan
horta cadaanka wuxuu dhahaa rules are there to be broken sharciyada waxaaba loo dhigay meesha in la jabiyo soo cagarta ma adeero haddii aad fiirisid nuxurkana wuxuu yahay ani kulay Kenya baan ku arkay wasiir hebel markii wasaaradda laga qaado waxa weeyaan wasiirka cusub baa imaanaya xafiiska la iskugu imaanaya warfaylkan wuxuu ku saabsan yahay saan iyo saan yani saan iyo saan system xafiiski waa kan hay fi amaanillah soo cagarta ma nuxurka idil intaas weeyaan marka ma si ma aragtay laakiin Soomaaliya sharaf badnayn maadaama oo si uu isagu ku sheegay inuu wanaagsanin xilka looga qaaday codsi uu gudbiyay inuu diyaar u yahay inuu sheegay sharciyana ay sharci yaqaanadu ku doodayaan inuu isaga qofka xil wareejinta leh in inta ra'iisul wasaarihi hore lagu sharfo ma qurux badnay horta meesha sharaf inuusan jirin ayaa waxa ka fahmaysaa muddada ugu gaabneed ayaa ma aragtay codka kalsooni la'aanta loo soo jeeday laga qaaday ma aragtay khayr marka macna badan ma laha waayahay waxyaabo badan ay dadku isweydiinayaan oo dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin ra'iisul wasaarihii hore waxa uu haboon qodobo dhowr oo tuhumo kala duwan ay ka jireen in uu maadaama uu maanta banaanka ka joogo xukuumadda inuu cadeeyo haddii uu isagu lug ku lahaana ummadda ee Soomaaliyeed raali gelin ka dalbado haddii uusan qayb ka ahayn uu cadeeyo waxaa kamid ah arrintan diidmada haddii la diiday oo runtii tahay in sharcigaas intuu codsaday laga diiday inuu xilka wareejiyo inuu cadeeyo arrintii waxaa kamid ah heshiiska wadamada geeska Afrika oo Ethiopia Eritrea ay gaareen iyo heshiiska Ethiopia Soomaaliya la gashay dekadaha arrinta la xiriirta iyadana inuu cadeeyo oo waxyaabaha dadka qaarkood ay sheegeen inay muhiim tahay waxa kale oo ra'iisul wasaaraha la sheegay inuu cadeeyo in ay wanaagsanaan lahayd arrintii dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo iyadana dawladda Soomaaliya xukuumadii uu Xasan Cali Khayre saameyn ballaaran ku yeelatay qodobo kala duwan ayaa looga baahan yahay ra'iisul wasaaraha in uu cadeeyo ay dadka arrimaha siyaasadda inay talooyinka u soo jeediyay ay leeyihiin halkaas aynu ka gudubna sheekadaasi la xiriirtay arrinta Soomaaliya iyo xil wareejintaas iyo waxyaabihii xil wareejintaas ay dadka sharci yaqaanadu ka dhaheen intaba